كرو أنا أورر مرة بإن أنا كديك كلي مركو وأن قرشة دت كاس الربع إن وأورر هذا وحن سكوكايا دريبة كمديهم بقى ما فهمتي بدك أعرف ميديا كشقة واحد بدنا أوجه هي وهو أورر واي وهبلو واي مرة بقى أنا وحن أولى واي أولى إدمينس وحواي وحبا الله أولينا اللي هرجلي الله ربنا ما ده حنا كنا نقدم مرة بقى أو إن العكو هلانا ربن أو إن العكو هلانا ربن ما ندونا هذا الذي ذكر دعاء أنا قاعد ربنا العكس ما يسون أنه عندنا العكتو واتهاي دد بدن وحي سويتينيان هرت آمنوا علماء الدين كي ما أركتي والله هذا أسايدا لقادنا أيضا أضيق هذا من لفتر كذا وحي ليهن حق الدين تسداب إنه قكرتها مركب بهذا علماء دي ما أركت وما سنت حسن حواي هرت الدين إسلام أنها وأنا كوقس بأنها وحكة ستوب إن الدين تكسرين هاي وحول بقى وناجنا أيضا كسنتها ولا حقوق ذا أذنها وحكة ستوب اللي وش جاي دين تكتمت ده كان هالقلب كان لأنه لنا الديمقراطية ده شيء جاي الدين تكتمت أيضا يحكون الدرسين دين الإسلام ك لما قفايه لما أنا هرير مرايه أو ما نكر إن دين الإسلام كهرير مرا وأنا أكيد كوب بدنه حتى قاب درن وحي كسو قربا arkay laakiin waxa waay aniga waan kale gabar Soomaaliyeed aan ahay oo hadan islaam wax xijaaban lahaa Soomaha markaa socdo waa soo lahaa hadan maray binkigan ah aan xirto ee tan cad hadaa xirto hay islaanta arto marka hore islaanta waa gartay waa kalar kana waa kalar waa koob talabaad waxa waay aniga odageygina waa ila jooga xaasna waa u ahay cuntadooda waa cunaa waxayga kale oo ma tanasulen asayduna asayruna ma aha waxayga soo duwa marsada soo asayruna ma aha marka Soomaa waa laga dhiga ma waa inaad umrigoto wadanka tan saddexaad waxa waay marka dagaalka sokeeya dad xasuusato dagaalka sokeeya dagaal noogu horeeyay generation kayga xataa dagaal kale ma arkin moogta waa sax marka la rabo in nabad la yiraahdo xabadii la joojiyo maracada la ruuxi jira moogta ala alcad la ruuxi jira nabadda haye aniga nabadda sambalki nabadda waaya cadaasita وارنتا لكن مقعاس أما وحلقة بدلها يدتكو لين أسايدا محل حلقة بدلها بابا مروقي سنة هاي دad kaygi aba maalin walbaba la dhameynaa iyadoo la xisaabinay sababta looga bedelayo maxay tahay hangal waxa loo yiri ama asay waxa loo yiri waxa waay dadkaygaas masaakiinta een ceelna u qodnan cidina u maqnayn in korkooda madfac laga riday inay korkooda iska eegtaan dadka dagaalamaya ma ahan cid u naxaysaana aanay jirin inay u murugoodo waay aniga asayda waxa u soo waa taa ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii maxay tahay fariinta maanta aad diraysaa hood dadkaaga iyo shacbigaaga maadaama aad kasoo sheekeysay ololahan gesha sababta loo bilaabay ujeedadiisa waxa aad sameynaysid welina maaragtay bishii hadda agosto markii kowdeedii ayaad bilowdeen ilaa inta udhexaysana dagaalkii waa sii socdaa dadki waa sii dhimanayaan wax kaa maqlaayo maadaama aanay hadda aysan muuqanin aysan jirin waa maxay tallaabada aada is leedahay shacbigu ha qaado si maaragtay dhibka looga joojiyo xasan meeshaan waxaa loo baahan yahay waxaa dhammaaday oo dadkii waaweynaayo sideedoo kale intuu iga sii weynaa waxaa ka dhammaada wadaniyada generationka yaryaraayna maba yaqaanaan wax wadaniyad la yiraaho aniga oroleyga waxaan rabaa wadaniyada wax la yiraahdo inaan soo nooleeyo waxa waaye dadka in la baro war aniga reer habal ha ii jeclaanine iyo gabadhi adeerkaaga sideedaad dhalay darteed ha ii jeclaanine waxaa ii jeclaataa walaasha kula dhalatay oo Soomaaliya oo muslima ina ah sax saas ii jeclow saas aan isugu duubnaano waa gartay ma fahamtay hadda marka waa runta dad badan sii dhintay haddaan ololahan jirin waa dhima lahaayeen le dadka toodaa gashay ma fahamta waana ka xunaa gardarrana waa la isaga dilayaa hase ahaatee ta aan rabo waxa waaye ololaha wuxuu bilaabayaa iskuulo wadaniyada lagu barto aniga waxaan deganahay meel London banaankeeda London waa ka shaqeeyaa shaqada iga taal meeshaan deganahan haddaba ka bilaabaya oo haddaba qaabadiisa wadaa dadka waxay u baahan yihiin wadaniyada iyo dhaqanka ana Soomaaliya dhaqan aan leenahay
diinna waa leenahay weligeena islaam aan ahayn haye ma fahamtay haye ma maqlin aniga abkoogaa gashan adaa gaal ahay waaro islaan inaan ahayn intaasoo jiil aan islaan ahayn soomaali heer waxaa la joogay 100% waa islaam ilaa iyo hadda ma garanayo aniga boqolkaas haday naaqusteen dee kale ma garanayo man rabo inay ahaado dhinacaas laakiin 100% inay islaam tahay isu haysanaa waa sax hal afaan leenahay waa sax sababta isu dilayna maxay tahay dana gaaraha la isu dilaa soo maaha haddaba kan danta gaarka wadaaw annaga wax nagu filanaan aragnay mana rabna hadda kabacdi inaad disho walaalowna nabadgeli laakiin iskuulladu ma London baad iskuullada ka bilaabeysaan mise iskuullada wadaniyada waxaa looga baahan yahay wadankii Soomaaliya wadaniyada maba la yaqaan hadda haye maba la yaqaan wadaniyada waxa wadaniyad inaa aniga iyo adiga iyo dhowr qofood oo kale inaan Soomaalinimo wax u qabsano oo wadankeena jeclaano wadankeena isku dhexdiisa isku jeclaano Soomaalinimana isu jeclaano iyo inaan tafaraaruqno oo midba meel waraabuhu ku cuno yaa roon waa sax laakiin Soomaaliya xageeba laga hirgelin karaa baad leedahay meel badan laga hirgelin karaa meel badan laga hirgelin karaa soo iskool lama aado meesha waa la aadaa ha isko xabado socota iskool dhigta Soomaa marka waxa waa aniga manhaj cusub in laga dhigaa rabaa wadaniyada iyo dhaqanka wadaniyada iyo dhaqanka nationalism iyo culture-ka ila bartaan rabaa kuwa meesha aan ku hayna carruurta aan dhalan culture ma hayaan ma fahamta waxa waaye marka waxaan noqonay in banaankan ku habawday oo ku lunta iyo in wadankii lagu dilaayo ma soconayso waa tahay aad baad umahadsan tahay ololahaaga haween keliya miya mise raggii iyo haweenkiiba waxaad leedahay isku mid u yihiin haween keliya ma haween keliya ma haweenku maryahan caday qaadanayaan ma haween keliya ma laakiin maalinta aan rabno banaan baxyaa jiri doona insha Allah bilaha soo socda ana ku dhawaa oo lagu dhawaaqi doona gadaal laga soo sheegi doona ilaa qabaqaab u baahan yihiin waxa loo baahan yahay waxa waaye in war gabadha xitaa hadaadan maali walba qaadan karin waa dadku maskaxda ka cunayaan aniga dhowr jeer waxay soo diraan diintu ma ogole hadaadan qabaysan intaas hadaadan saliid marsan ayaga ku moogta warkaaga ama si qaldan u qaadanaya ama si ula kac si qaldan u qaadanaya labadaba marka waxa waaye hataa hadaadan qaadan karin maalinta lagu baahdo oo ololahan in la muujiyo la rabo soo xiro maracad waa intaas qasab ma hataa inaad sidoo moogta maalin walba inaad qaad qofka balanta qaada aniga waay qofka looga fadhiyo inay sido haye ilaa intay ka dhimato ama nabad ka dhalato waa sax ma fahamtay marka dad balanta ila qaadayso yaa saama rabaa aad ku adkeysan kartaa waa rabaa aad ku adkeysan karayso ana hada bilan sida oo aan sinna u dhigan ana marka carruurtu soo iibsanayo ana banaanka u baxay waa xirtaa ma garatay laakiin ragga waxa waaye weer cad xiranayaan weer cad xiranayaan waxay xiranayaan mara yar oo cad xiranayaan maalinkaas adigu banaan baxa iyo qofkii soo qaadan karta soo qaadan kara soo qaadan shartigu waa kaas waa tahay aad baad u mahadsan tahay wareysigaasi gaarka ah waxaan la yeelanay Aamina Muuse Wehliye oo ah saxafiyad Soomaaliyeed oo aad ku taqaanaan idaacadda BBC-da Aamina Muuse Wehliye iminka waxay hormud u tahay olole ballaaran oo la doonayo in dalka Soomaaliya laga hirgeliyo si nabadda maaragtay loo fahmo ololahaasi waxaa lagu magacaabaa ololaha Hangasha marka runtiina dhowr marna way ku celisay annaguna hadda waa sheegaynaa oo ah ololahani iyo mihnadeeda shaqo inuusan wax shaqaayis isku lahayn ololahana runtii waa mid loogu talagalay dadka Soomaaliyeed inay nabadda uga qayb qaataan dagaalada iyo colaadaha iyo maanta dhimashada iyo dhaawaca iyo barakaca ummadda Soomaaliyeed soo gaarayana mid la doonayo in lagu yareeyo ayay u tafaacidatay Aamino Muuse Wehliye aad baad u mahadsan tahay Aamino barnaamijkeeni gaarka ahayna oo wareysiga ahayna intaa ayaynu kusoo gunaanadeynaa waxaan idinla socodsiinaya anigoo Xasan Cadde tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.